saaxiib haddaad page-ka ku cusub tahay na dhiirigeli oo dheh subscribe, like iyo share. Waa taxanaheennii 100 ka mid ah halyeeyada ummadda islaamka qaybtii 3aad. Waxaan ku soo qaadan doonaa halyeyga labaad oo ah halyeygii galbeedka islaamka Amiir Mohammed bin Cabdilkariim al-Khattaabi. Amiir yahow, waxaan si khaasa kuugu imid Qaahira si aan adiga waaga barto. Sidaa waxaa yidhi gacanyahankii shuuciga ah ee la oran jiray Che Guevara 1960. ninka ay magaciisa ku qaylinaya dadka Aasiya, Afrika iyo Hindiya ee ay ku heesayaan magaciisa, ninkan ku dagaalamaya magaca islaamka ee soo celinaya imaaradii mu'miniinta iyo khilaafadii islaamka, waa khatar ku soo fool leh wadamada Yurub. sidaana waxaa yidhi Sarkozy 1921 oo ahaa xubin ka tirsanaa baarlamaanka Ingiriiska. waxaan dhufayska hore ugu soo galay Cabdilkariim oo ay diyaaradaha Isbayn iyo Faransiisku ku garaacayaan bambooyin aad u waaweyn. waxaan la kulmay isaga oo dhoola cadeyn oo aad u faraxsan oo dagaalamaya, rasaasna ku ridaya diyaaradaha. aad baan ula yaabay muuqaalkan bani'aadanimo ee gaarka. sidaana waxaa yidhi ninka la yidhaahdo Vincent Shun 1926 oo ahaa wariye Maraykan. ma ayna rumaysan Cabdiraxmaan Cazaam Baasha, xogayihii guud ee ugu horreeyay ururka jaamacadda carabta, indhihiisu markii uu akhrinayay telegaraamkii sirta ahaa ee ka soo gaaray koox ka mida mujaahidiintii carabta ee Yemen maalin ka mida maalmihii sanadkii 1947. telegaraamkan oo u qornaa sida tan: degdeg iyo sir culus. waxaa dekada cadan ku soo xirtay maanta doon Faransiisku leeyahay. waxaa saaran dusheeda oday maxbuus ah oo silsilado ku xiran. waxay u eg tahay inuu yahay geesigii weynaa ee islaamka ee lala'aa muddo 20 sano ah. doontuna hadda waxay u socotaa Faransiiska. waxay berri ku soo aadan tahay dekada Boorto Saciid ee Masar. sidaa darteed waajib bay noqotay inaan idinku baraarujino. mar alla markii uu dhameeyey Cazaam Baasha akhrinta telegaraamka hadda uu soo gaaray, wuxuu si degdega u dalbaday inuu la kulmo boqor Faaruqi Masar xukumayay si uu ogala hadlo arrinta telegaraamka khatarta ah ee hadda uun ka soo gaaray Suuriyada Baabumandab. waxay wadahadal qarsoodi ah ku yeesheen Cazaam Baasha iyo boqor Faaruq qasrigii boqorku deganaa. isla markiiba waxaa soo baxay amar ku socda saraakiisha Masaarida ee kanaalka Suways inay doonta Faransiiska joojiyaan, looguna keeno odayga saaran doonta qasriga boqortooyada si loo hubiyo ninka uu yahay. wax ka yar 24 saac waxay saraakiishii Masaaridu boqorka u keeneen oday garkiisa aad moodo baraf cadaan dartii oo si degan u tallaabsanaya. inkasta oo uu gaabinayay, waxaa ka muuqanaya wejigiisa doorsoomay muuqaal halyeynimo iyo sarrayn aan cidna ka qarsoonayn. wuxuu ku labisnaa dhar cadcad oo basiid ah. dhudhumada gacmihiisa iyo lugihiisa caatada ah waxaa ka muuqanayay haaraha ay silsiladaha iyo katiinada ku dhigeen. markii odaygaasi soo hor istaagay boqor Faaruq ayaa boqorkii Masaaridu weydiiyey cidda uu yahay. odaygii weynaa madaxa ayuu kor u qaaday, wuxuuna ku fiiriyey boqor Faaruq indha aad moodo indhaha gallayrka. kolka ayuu si isla weyni iyo kalsooni ku jirto wuxuu u yidhi, waxaan ahay Amiir Mohammed bin Cabdilkariim al-Khattaabi. in yar aan taariikhda dib ugu laabanno. Qaahirana waxaan uga dhaqaaqaynaa dhinaca galbeed, gaar ahaana magaalada Agadir oo Allah baadiyaha galbeedka islaamka sanadkii 1301 hijriyada oo ku beegan 1884 miilaadiga. halkaa waxaa ugu dhashay oday ugaas u ahaa mid ka mid ah qabiilooyinka Amaasiiqiyiinta Barbarka oo lagu magacaabi jiray Cabdilkariim al-Khattaabi, wiil uu u bixiyey Maxamed isaga oo barakaysanaya magaca nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. sheekhani wuxuu go'aansaday inuu wiilkiisa siiyo isagoo aad u da'yar barbaarin wanaag. dhab ahaan wuxuu baray luqadda Carabiga, Qur'aankana isaga ayaa xafisiyey. kadibna wuxuu u diray jaamacadda Qarawiyiin ee magaalada Faas si uu halkaas ugu barto cilmiga xadiiska iyo fiqiga islaamka. sanado yar kadibna Maxamed bin Cabdilkariim al-Khattaabi wuxuu noqday qaaliga magaalada Maliila ee Maroko isaga oo weli dhalinyaro ah. waqtigaas duruufta dhulalka galbeedka islaamku way ka adkayd mid ay cidi suuraysan karto. waxayna ogaadeen dowladihii gumaysiga reer Yurub in dhulkani yahay warshadii weligeed soo saaraysay geesiyaasha. dhulkan ayay ka soo baxeen mujaahidiintii dowladii muraabidiinta ee u tallaabay Andalus. dhulkan ayay ka soo dhaqaaqeen ciidamadii dowladii muwaxidiinta ee u tallaabay Yurub. sidoo kale dhulkan ayay uga dhaqaaqeen markii ugu horreysay guutooyinkii nuurka islaamka ee uu hogaaminayay Taariq ibn Siyaad. dhulalka reer Yurub waxay go'aansadeen dowladihii gumaysigu inay soo afjaraan khatar islaamka. waxay isugu yimaadeen dowladihii gumaysiga reer Yurub shirweynihii
jasiiradda cagaaran. Sanadkii 1906 shirkaas oo ay ka qayb galeen 12 dal oo reer Yurub ah iyo Mareykanka markii ugu horeysay ayaa waxaa soo ifbaxay magaca Mareykan, iyada oo ay dowladda Mareykanku jebisay mabda'ii Monroe oo dhigayay inayna faragelinin siyaasadaha caalamiga ah. Dowladahaas oo dhan waxay u shireen inay si kama dambays ah u soo afjaraan cabsidii joogtada ahayd ee ay qabeen Islaam. Wuxuu noqday go'aankii kama dambays ahaa ee ka soo baxay shirkaas in la kala qaybiyo dhulalka galbeedka Islaam. Arrinta la yaabka leh, dowladahaasi kuma ekaan inay kala qaybiyaan boqortooyadii galbeedka Islaamka oo keliya, ee waxay u kala qaybiyeen si aad u fool xun oo dadyowga dunidu ayna horey u aqoon. Qaybintaas oo u damaanad qaadaysa inayna weligood dib u midoobin. Faransiisku wuxuu qabsaday qaybta koonfureed ee boqortooyadii galbeedka Islaamka Mauritania. Spainna iyana waxay qabsatay qaybta ku xigta ee dhinaca waqooyi Saxaraha galbeed. Kadibna Faransiisku wuxuu qabsaday waqooyiga Saxaraha bartamaha Morocco ee haddana Spain ayaa qabsatay qaybaha waqooyi ee galbeed baadiyaha Morocco. Halkan iyo halkaas dhexdooda waxaa magaalooyin ka qabsaday Jarmalka iyo Ingiriiska. Dhammaantood waxay moodeen inay si kama dambays ah uga takhaluseen jiritaanka Islaamka ee dhulalka galbeed. Laakiin Sheekh Cabdulkariim Al-Khataabi iyo wiilkiisii Maxamed, Ilaahay khayr ha ku abaalmariyee, waxay qabeen aragti kale. Waxay bilaabeen inay qabiilooyinka iyagu isku mashquulsanaa ku mideeyaan calanka Islaamka hoostiisa iyo inay fariimo isdhaafsadaan khaliifka Islaamka ee fadhiyey magaalada Istanbul. Markaa ciidamadii Spain waxay diliyeen Sheekh Cabdulkariim Al-Khataabi, Allah u naxariistee, waxayna qafaasheen wiilkiisii Sheekh Maxamed. Waxay ku xireen mid ka mid ah xabsiyadoodii oo ku yaalay buur dheer dusheeda. Sheekh Maxamed si la yaab oo aan la fayn karin ayuu xabsigii uga baxay kadib markii uu xariga uu ka sameeyey maradii uu guglanayay uu darishada ku xiray kagana degay buurtii. Laakiin nasiib darro, xarigii ayaa gaabtay umana suuro gelin inuu dhulka gaaro. Kadibna wuxuu ka booday meel aad u dheer, wuxuuna ka jajabay labada lugood, wuxuuna la suuxay dhaawicii soo gaaray. Markii ay ogaadeen ciidamadii xabsigu, dib ayay xabsigii ugu celiyeen. Kadib markii uu muddo afduubnaa ayuu xabsigii ka soo baxay. Amiir Maxamed bin Cabdulkariim Al-Khataabi wuxuu ka abaabulay baadiyaha Morocco ciidan ka kooban 3,000 oo nin, isaga oo hindisay nooc cusub oo noocyada dagaalka ka mid noqday. Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay oo bilaabay dagaalka ku dhufo oo ka dhaqaaq. Xarbul Cisaabaad waxaa isticmaalay noocan dagaal ee ku dhisan weerarka kediska ah iyo ku dhufo oo ka carar dhammaan kacaanyahanadii caalamka markaa kadib. Sidoo kale wuxuu alifay Amiir Maxamed nidaam kale oo loo adeegsado muqaawamada ama iskacaabinta. Wuxuu qiray hogaamiyihii Fiidnaamiyiinta Hu Chi Minh inuu ka bartay Amiir Al-Khataabi dagaalkii Fiidnaamiyiintu la galeen Mareykanka sanado kadib. Nidaamkaasi waa nidaamka qodidda dhulka hoose ilaa laga gaaro xeryaha cadowga. Sidaa ayuu ku awooday halyeygan Islaamku inuu cashar cusub oo kharaar u dhigo ciidamadii gumaysigii Spain maalin walba oo ka mida maalmihii dagaal. Markii ay badatay khasaarihii Spain ka soo gaaraya baadiyaha galbeedka Islaamka, boqor Spain Alfonsis III wuxuu ka soo diray Madrid, caasimadii dalkaas, ciidan dhammaystiran oo uu hogaaminayo saaxiibkiis Generaal Silfisari. Labadii ciidan waxay iskaga hor yimaadeen dagaalkii Anwal ee lama ilaawaanka ahaa. Ciidanka Spain waa ciidan nidaamsan oo ka kooban 60,000 oo askari oo wata diyaaradahooda, taangiyadooda oo ay u dhan yihiin wax walba, oo ay ka soo horjeedaan 3,000 oo mujaahid oo ku hubeysan qoryo xabadkeliyaala ah. Laakiin labada qolo waxay ku murmayaan rabbigooda. Qolo jidka Ilaahay ayay ku dagaalamayaan, qolana waxay ku dagaalamayaan jidka dhulboobka iyo macad. Ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu u heeliyo muuminiinta. Run ahaantii 3,000 ee mujaahid ee uu hogaaminayay halyeygii Maxamed Al-Khataabi waxay ka guuleyseen ciidan dhan 60,000 oo askari oo mactab ku dirir ah. Muslimiintu waxay dileen 18,000 oo Isbaanish ah. Waxay gacanta ku dhigeen 10,000 oo maxaabiis ah oo kuwii soo duulay ah. Halaagii iyo qafaalashadii waxaa ka baxsaday 600 oo askari keliya oo u firxaday Spain sidii ay satay oo kale si ay uga waramaan boqorkooda hoogii ka qabsaday baadiyaha Morocco. Amiir Khataabi markaa kadib wuxuu ka aasaasay waqooyiga galbeed Islaamka imaarad Islaami ah. 5 sano gudahood wuxuu Khataabi u taagay inuu dadka baro diinta saxda ah. Wuxuu arday soo barata u kala diray dowladihii caalamka. Wuxuu ku mideeyay qabaa'iladii iska soo horjeeday calanka Islaamka hoostiisa. Sida la fisho, marka baraarug Islaam la arko kadib waxaa mar kale isa soo bahaysay cadowgii mactabku dirirka ahaa oo aan u midoobin waxaan ahayn la dagaalanka muslimiin. Kadib markii ay dareemeen khatarta dowladda Islaamka ah ee dhalatay oo haddii ay sii jiri lahayd bedeli lahayd socodka taariikhda, waxay sameeyeen isbahaysi ka kooban 500,000 askari oo reer Yurub ah oo mactabku dirir ah. Ciidankaasi waxay wateen
wateen taangiyadooda, diyaaradahooda iyo maraakiibta dagaalka si ay ugu jebiyaan 20,000 oo mujaahid keliya. waxaa dhacay lama filaankii weynaa. waxay kaga guulaysteen mujaahidiintii uu hogaaminayay halyey amiir moxamed bin cabdilkariim al-khataabi dhammaan goobihii la isku farasaaray. waxay u geysteen cadowgii soo duulay khasaarooyin aad u waaweyn, taas oo ku khasabtay isbahaysigii reer Yurub inay iibsadaan qaar ka mida odayaashii dariiqooyinka suufiyada. khaa'iniintaasi waxay dagaalka ku qaadeen amiir khataabi oo markaa ka hor la dagaalamay bidcooyinkii iyo khuraafaadkii aan ilaahay wax xujo u soo dejinin. waxay soo saareen fatwo xaaraameynaysa in dagaalka lagu taageero khataabi ka hor intii ayna diyaaradaha Faransiiska iyo isbahaysigu ku garaacin hub kiimika ah iyo neefo sun ah dadkii shacabka ahaa. isla markaa waxaa xiray xeebaha Maqrib ciidamadii badda ee boqortooyada Ingiriiska. amiir moxamed al-Khataabi waxaa la dagaalamay ummadihii oo dhan, khaa'in iyo mactab ku dirirba. ciidankiisii waxaa ku soo haray 200 oo mujaahid keliya oo ilaahay ballan kula galay inay la dagaalamayaan cadowga inta ay ka shahiidayaan. kooxdani waxay u dagaalamayeen sida libaaxyada ilaa mactab ku dirirkii ka quusteen inay jebiyaan. markaa waxay sameeyeen xeelad gabowday oo cusub, taas oo inta badan kusoo noqnoqon doonta kitaabkan dhexdiisa. mactab ku dirirkii waxay heshiis ka dalbeen amiir moxamed iyaga oo ballanqaadyo adag u sameeyey muslimiinta oo ah in la nabadgelinayo mujaahidiinta loona ogolaanayo shacabka reer Maqrib inay si xorriyad iyo sharaf ah ugu noolaanayaan dhulkooda. sidii caadadu ahayd ballantii way ka baxeen, waxayna afduubeen amiir moxamed bin cabdilkariim al-Khataabi waxayna ku xireen jasiirad ku taala badweynta Hindiya. ma ahayn sanad iyo 2 sano, wuxuu halkaa ku xirnaa 20 sano xiriir ayuu halyeygaasi u afduubnaa kuwa sheegta inay ilaalinayaan xuquuqda bani aadamka. wuxuu u afduubnaa kuwii la soo baxay halkudhigyadii kacaankii Faransiiska ee ahaa xorriyad, sinaan iyo walaalnimo. maxay tahay xorriyadda aad ku baaqaysaan adinka oo xaqdarri ku xabisay daciif ah 20 sano? maxay tahay sinaanta aad ka hadlaysaan adinka oo ku laayay haweenkii muslimiinta iyo carruurtoodii hub kiimika ah? maxay tahay walaalnimada aad ku siraysaan maangaabka iyada oo ilbaxnimadiinu ku dhisan tahay dhiigga dadka taagta daran? naga fogaada adinka iyo ilbaxnimadiinuba. sadaradani waxay ahaayeen halgankii islaamiga ahaa ee lama ilaawaanka ahaa. halyey islaami ah oo weyn oo u huray dhallinyaronimadiisii koryeelidda calanka tawxiidka. arrinta ay naftu la murugoonaysa qalbiguna la ilmaynayo waa inayna badi dhallinyarada muslimiintu ayna weligood magaciisa maqlin, iyada oo ay jirto in badan oo ka mid ah dhallinyaradeenna inay aad u jecel yihiin geesiyaal aan u dagaalamin waxaan adduunyo ahayn ama u dagaalamay mabdaca shuuciyada. haddii ay dhallinyarada ku dhegsanaya derbiyada sawirka kacaanyahankii shuuciga ahaa ee Guevara ogaan lahaayeen inuu Qaahire u yimid inuu wax ka barto halyeygan islaamka amiir moxamed bin cabdilkariim al-Khataabi, waxaa isbedeli lahaa aragtida dhallinyaradeennu ka qabaan taariikhdooda ay hilmaameen ama la hilmaansiiyey. halyeygani ma ahayn saxaabi, mana ahayn xataa carab. markaan ka soo gudubno halyeynimada geesigan inaan ku xusnay kitaabkeenna bilowgiisa, waxay jawaab u tahay kuwa masaakiinta ah ee marka aad ku dhahdo ku dayda geesinimadii saxaabadii nebiga iyo nafridoodii marmarsiinyo ka dhiganaya. annagu ma joogno xilligii asxaabta, marka inaan soo qaadanno nin soo baxay qarnigii 20aad ee milaadiga ayaa ah jawaabta ugu habboon kuwa aan waxba ka akhrin taariikhda ummadooda ee nuuraysa. laakiin maxay tahay qisada dhulka Masar ee martigelisay geesiyaal jinsiyadaha ummadda islaamka kasoo kala jeeda, kasoo bilow suldaankii kurdiga ahaa Salaaxudiin al-Ayuubi ilaa amiir moxamedkii reer Maroko, adiga oo sii maraya boqorkii Turkiga ahaa ee Qudus ee jebiyey Tataarka? waa tuma gabadha reer Masar ee hooyada u ah carabta cadnaaniyiinta, awowayaasha nebigii islaamka Muxamed sallallahu calayhi wasallam. muxuu yahay casharka gabadhani bartay bani aadamka? maxay gabadhani u noqotay mid ka mid ah halyeeyada gabdhaha ah ee ummadda islaamka? la soco qaybta xigta.